la diriraan ninkii gaaldila dogsay aakharae dulliga iyo ceebtaan qabne duudka naga saaran kuwii diiday ee dhabu dafiray ee jannada duuntay wardaaraha firdowsaad kuwu deeqlaw iyaboohay waa naftood horayaashii ONLF ee iyaga oo ilaahay mooyaan cid kale oo ay isku halaynayaan uusan jirin iyaga oon hubaysanin iyaga oon raashin haysanin ayaga oon lacag haysanin ayaga oo dadkoodii laga wada hor keenay ka go'aansaday intay ilaahay kaashadaan oo laxdooda iyo hashooda iyo socooda caanahooda iyo koobada masagada dhulkooda ka soo baxda intay ku tashadaan inay wadankooda ka dhaxalgamaan go'aansaday kuwaas weeye ee naftoodii u horay diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda xooggan lagu qaatay ee lagu dulmayo kuwaa weeyaan ilaahayna uu ku guuleeyey weeyaan ee cadowga sankiisa caanaha ka keenay kuwaas weeyaan diiday dulliga gumaysiga inay u dulqaataan oy rarka yeelaan kuwii diiday baan u jeedaa ee go'aansaday inay ama shahiidaan ama ay sharaf ku noolaadaano ayaga dartood uu gaalku ku ledi waayo gogasha ogaadeen iyo dhexdeeda inuu habeen hurdo isu keeno isticmaalka Ethiopia wiilashii u diiday weeyaan dulliga iyo ceebtaan qabne doodka naga saaran kuwii diiday ee dhabo dafiray ee jannada doontay daaraha firdowsaad kuwu deeqlaw iyaboohay ayagoo difaac galay kuwu diirad loo boobay dadku kala wanaagsan ee raggay qalaatay daayartu كل مود مدعيين هدي نورش الدوناني ويلا شي دقالمي مركي دوبتي بارودو ويلا شي دقالمي مركي دوبتي بارودو كوا نو دنبيو رساس ديهن هدان كنو ورودو مركو دايديو بيها وكدابا قادو علماء علمي قدار عن الدين تبارا ريسا در إلهي وقراه ديدا والناو تارن داغديو حدا نوغرتان دنيا دي مالكا دالك موسى نيستين تقري عن دادباهيني ورونا ما دوليستين وحيدا فشارهاي دادكا نوو هدي اي حبتا حبان نغاقا حدين هدي نوغريان هانتي دودا علماء او الدين جهالك حق سندي سوق haddii ay dadka loo gubaaminayaan oo ay ka dhaadhicinayaan jihaadkan inuu mid xaqay kuwa maalqabeenka ee iyagu xabadda diidan ee danahooda gaarka ah watay si dhab ah hadday hantidooda noogu caawinayaan xaqiiqatan ogaadeen ee dhibka maanta haystay ma uusan haysteen weeyaan ma uusan haysteen waxa weeye dadkii wadanka lahaa ayaa hagraday weeyaan waxay go'aansadeen noloshooda inay ku dhamaystaan laajinimo iyo guriile ummad kale wadankeeda inay ku guriilayaan midka ganacsadaha guriile weeyaan sidanada ayuu duurka guriile ku yahay weeyaan mar hadduusan ganacsi xor lahayn meeshii la arkaba haddii baad iyo canshuur iyo gunno iyo madax furasho lagaga qaadayo waa guriile weeyaan laakiin dadkii ogaadeenaya kuwii maalqabeenka ahaa iyo kuwii aqoonta lahaa iyo kuwii waaya aragintahay wayba yasemba inay sharafta ummadooda u halgamaan wax laga xishooday iyaga la noqotayba waxay sharaf moodeen inay laajinimada iyo dalalka kale oo lagu noolaado ay fiican tahay bay taas ay u qaateen waxayna go'aansadeen dalal kale oo iskaga noolaadaanba ogaadeen inay ka samreen baad moodaa dal iyagu ay leeyihiin in ay hawshooda ku qabsadaan kii ganacsan oo ka ganacsado kii wax baran oo wax ka barto in ay wax qaali ah tahay wali ma aynan xusuustooda ku soo dhicin laakiin way gaari doonaan marka yaa taasna uga jeedaa haddii ay nacaawinayaan dadka nagu oo markay kuwaasi shahiidaan ay kuwa dambe imanayaan oo rasaasta ay bixinayaan oo maalka ay loo hurayaan digreemadeena rafaadkan maanta ma mudeen kumana hayeen weeyaan wiilashii dagaalamay markay dubatay baaruudu kuwa noo dambeeyiyo rasaas dihin haddaan keenno waroo dumarku dhaydiyo biyaha uu ku daaba qaado deeqdiyo haddaad noo hurtaan dunyadii iyo maalka dalka muusan haysteen tigre aan dadba ahayne waroonama dullaysteen wixii daafushaa lahaaye dadkaannagaan dad khayr laba ahayn oon dawaar ahayne dadkaannagaan damiir ficil lahayn oon danqaani hayne
dadkaanagaan danaynayn dad jira waxuusan daysteene dabka qaata diintay nafari inaan dagaalaye la diriraa ninkii gaaldila doogsday aakharae dambi maaha maansaduu haddii daacad loo tirin dambi maaha maansaduu haddii daacad loo tirin haddaan laysku diimayn markaan dowga jiira sheegno warbaldayaa dalkiyaan lahayn waa kan daayacan warbaldayaa dadkeennu lawaa inuu daneeyaaye warbaldayaa kufrigii soo dilay dabaa ordayaane warbaldayaa walaysii dugsani dabaaqadiisiiye warbaldayaa wixii daashaday dagashanayaane warbaldayaa wixii daashaday dagashanayaane warbaldayaa dabayruhu kolay wayga diigayaane warbaldayaa dayaalaygu oo dhan dulkan baaba'aye warbaldayaa anay ii dabguran dallacuuryaduye warbaldayaa dangoo idil aniga way damciihayaaye warbaldayaa dadoo idil haddaba wayska kaydiliye waxaa weeye ogaadeeniya way jilicday baa la odhan karaa oo way xabsooday baa la odhan karaa nin kasta caddaan iyo madow soomaali iyo ethoobiyan iyo axmaar iyo cid kasta ayay u jilceen dadkii reer ogaadeeniya xaqiiqatan maanta cid aan dilayn oo aan ku taagnayn oon baad ka dhuranaynin oo aan damcaynin ma jirto shacabkii ogaadeeniya xaqiiqatan waxaasi sharafta ilaahay uu ku siiyey iyo dadnimada ilaahay ku siiyey iyo kartida ilaahay ku siiyey haddaad iska qaadda ilaahay kugu soo celin maayo wax kastana wuu kugu istaagayaa xaqiiqatan waxaad noqonaysaa meesha ugu xun ee dadka meesha ugu xun baad kaga oorlaysaa runtii marka waxaa wey shacabka ogaadeynaya geeska afrika oo dhan baa lagu dulmayaa jabuuti baa lagu dulmaya oo jaad lagu gadanaya gobolladii soomaaliya o dhan boosaaso xamar taasi markay saa tahay haddana gurigoodii baa lagu dulmaya oo soomaalidu ay ku dulmaysaa oo etoobiyaanku ku dulmaya oo cid walba ku dulmaya waxaa isweydiin la haddaba dadkani ma sidan u ahaan jiray waa in taariikh dib aan ugu noqono xaqiiqatan mise waxbaa jira weeyaan maynan ahaan jirin sharaftii aan lahayn iyo geesinimadii aan awooyaheen ka soo gaadhnay yaan inagu daayacnay weeyaan jiilkeenna maanta jooga ee dhallinyarada ogaadeynaya kuwaasaa beelahda keenay weeyaan oo dadka qayrkood ka reebay weeyaan oo cadow isu jebiyey weeyaan xaqiiqatan marka walaalayaal shacab weynaha ogaadeynaya meel kastoy joogaan waxaan u soo jeedinaynaa in ay ogaadaan oo xusuusnoodaan jileecan iyo nugaylkan iyo habnugaylkan inaan awooyahan laga dhexlin abbayoweenna aan laga dhexlin ee innagu maanta aan ummadeenna beelihinnay oo cid kastoo cadow inagu ahna waan isu jebinay taas baa xaqiiqo ah marka waa in dib loo raaco taariikhdii weeyaan sid habeen la waayey maalin loo noqoy baa la yidhi halkaasaan kabigibaan weliba ayaan sii wadaynaa warbaldayaa dalkiya warbaldayaa dabayluhu godhay wayga diigayaane warbaldayaa anay ii dabguran dallacuuryaduye warbaldayaa dangoo idil aniga way damciihayaaye warbaldayaa dadoo idil aniga wayska kaydiliye warbaldayaa dadow ceebtu way dabaa ordaysaaye warbaldayaa dankaan maanta ahay dacasnaydhe warbaldayaa dambaab lama hadle dumar ku imowye warbaldayaa hableehi doonana dusay cadowgiye warbaldayaa hablihii doonana dusay cadowgiye warbaldayaa dambaab lama hadle dumarkii imowye haddii dumarka ogaadeynaya hadda ka hore sharaf lahaayeen maanta in weyn bay leeyihiin walaalahood oo ragga abaanay intaad u sababay inay gabdhaha kale maanta ka xumaadaan ooy ka hooseeyaan innaga ayaa sabab u ah weeyaan marka waxaa xaqiiqa ah oo aan beenahayn gabdho ogaadeynaya u dhashay oo jooga dhulkoodii hooyo raggii
mehersaday ee xaaska u ahaayeen in wiil tigray uu kala baxay oo uu ka qaatay oo xaas u yihiin maanta taasaa xaqiiqa weeyaan marka ninka meel fog joogo haddii ceebta walaasha adigu waad la qabtaa meel la kaaga hadhi mayso warbaldayaa hablii doonana dustay caadowgiiye warbaldayaano doog warbaldayaa dalkaygo hodana yaan dib jeerayaaye warbaldayaano doog fadhiya yaan diracsaday warbaldaya dalkaygo hodana yaan dib jirayaa warbaldayaano doog fadhiya yaan diracsaday walaalayaal dadka reer Ogaadeenaya maanta 90% nolol inta leeg bay ku nool yihiin waxaa laga helay Ogaadeenaya noloshii caalamka ugu xumeyd ee adduunka soo marta sanadka 2000 Ogaadeenaya ayay ka dhacday xaqiiqatan adduunka nolol aan weligeed lagu arag haddana waxaa maqraati laga yahay caalamka oo dhan Ogaadeenaya waddanka ugu hodansan u yahay hadday shidaal tahay iyo gaaska dabiiciga khayraadka dabiiciga dahabka macdanta uraniumka wax soo saarka biyaha dhirta maalka dadka waa waddanka ugu hodansan baa la odhan karaa ee dihinaya eeganka ummadiisina waxay adduunka ka gashay nolosha ugu xun caalamka oo dhan baa ka yaqsaday wixii sanadkii hadda naga dhamaaday Ogaadeenaya ay soo martay oo wax isweydiin la weeyaan marka waa hodan dalkaygu waa dhul doogaada oo weligii ingegin haddana dib jir baan habeen daa'ina kaga noolhay aniga iyo ehelkayba weeyaan warbaldayaa dalkaygo hodana yaan dib jeerayaaye warbaldayaano doog fadhiya yaan diracsaday allaylehe sidaan doorkan nahay waa daciifnimo dulligaa waxyeelaa ma jiro maanta duunidiiye darxumooyinkaan laazimnu darisku fallayne dalkii aan tagnaaba ceebtu way idin dul joogtaaye dariiqaad martaan wadaa danqaba oo ilmaada duuga sidii dumar xishoodoo isdada oo indhaha duuba haddii kale dabaabaadka iyo dirad laaha booba dabka qaata diintayna fari inaan dagalaye la diriraa ninkii gaaldilaa dogsay aakharaa'e taasi waa dareen dignin qayla iyo dhila daabataale taasi waa dareen qayla iyo dhila daabataale dignin weeya aan rabo inaad dib ugu aydaane inkastoodna diideen inaad nala dishaan gaalka intaanadii dagaalka uu baxdee dirirta aasaastay iniyaan dawadii qaar helaan idin dareensiine waxa weeye shacabka Ogaadeenaya inkastoo 90% ay dagaalka nagaga hadheen oo halganka ummadooda aan ugu jirnaa ay nagaga hadheen haddana xaqiiqatan waxaan idinku tusayaa meeshan in aan guura la taaban karo ku gaadhnay halganka tii weynayda kama dambaysteedna rajo weyn aan ku qabno inaan waqti dhow gaadhno ilaahay idamkii insha Allah yaan rajaynaynaa taasaan idinku tusayaa Ethiopia oo isu tustay inay tahay libaaxi Afrika waxa weeye waxay awood ka intay saartay naftooda horayaasha oo wanalaf ee midhaha iyo curdaanka iyo gomashaha ku halgama in ay ka tirtirto halgankooda ay damiso ayay ku guulaysan weyday iska daa inay baabiisay inay hoos u celisay ku guulaysan weyday in iyadu ay maanta sii naaqosto hawlgalkeedii hubkeedii sahaydeedii iyo siyaasadeediiba ay sii naaqosaan mooyeen way ku guulaysan weyday inay halgankaa celiso ay caburiso kacdoonka wadaniga ah ee ka mataqaanaa ka istaagay Ogaadeenaya dhexdeeda marka in aan guushii qaybo badan taabanay yaan halkaa idinka tusaynaa intaanadii dagaalka uu baxdee dirirta aasaastay iniyaan dawaadii qaar helaan idin dareensiine warway dabaa dhowdaahay gaaladii daalunka ahayde inay daalan tahay waan hubnaa oon dambi ahayne dabaqoodhina cabkii dirsaday duubay gogoshiye dabaqoodhina cabkii dirsaday duubay gogoshiye war wuu dacal bannaan yahay midkii dooni jeeray gaale dayuuskii wayaanada jeclaa waa la daydayante dambii shacabka kii jeerka galay dabinkii buu yaale duc kastabaa waxaa nooga yimid dalabkii jawxaade
إن شاء الله وحاسو دقدقي دقي بهي إن شاء الله وحاسو دقدقي دقي بهي دوران فوقين باحرني مو وضربا رياي دوبكها وحلو عغم إنا درفكم ملاي وحلو ضيافة سيدا دمع سنيدين dabka qaata diintayna fari inaan dagaalaye la diriiraa ninkii gaaldilaa dogsay akharaae nin haddaad dakaana leedihiin dil iyo maalqaada war waa lagu digtaa maalintuu ku dalleen samaye etoobiya dakane gaboobay baa inaga dhaxeeya godob weyn oo soo factirsatay oo 500 oo sano ka fac weyn yaa inoo dhaxaysa shacabka reer ogaadeenaya dakarnada intaa leeg inay iloobaan waa nacasnimo weeyaan iyo baktinimo cadawaagu markuu leecana waa lagu digtaa waana laga faa'iidaystaa etoobiya marar badan bay noo leecday maantana way leecsan tahay walaalayaal dhulkay ka taallaa war waa lagu digtaa cadawaagu markuu leeco ee uu dalleensamo eed wax yeeli karto hadduu shalayto caalsaaraha kaa haystay oo xoog isku duuban u lahaa oo maanta uu ilaahay tanfuraan iyo wax ma taqaanaa awooddiisii hoosu dhiga uu ilaahay ku keeno xilligaasa laga faa'iidaystaa war maanta cadowgeennii biciid jaban weeyaan dhaqaalihiibuu ka jaban yahay ciidankiibuu ka jaban yahay siyaasaddiibuu ka jaban yahay shacabkii etoobiya uu adeegsanayay baa isaga xabad ku wada ridahay war maxaa idinka dhiigga idinka qaaday marka idinkaaba islaan waydaan isku afayn waydaan isku diinayn waydaan isku dal ahayn oo boqolaan sanana uu xaqdarro kugu soo maamulanayay maxaad la dhiidhihi laadahay maxaad u qayroon laadahay maxaad cadowgaaga jaban uga faa'iidaysan laadahay waa maxaa kugu dhacay weeyaan nin haddaad dakaana leedihiin dil iyo maalqaada war waa lagu digtaa maalintuu ku dalleen samaaye way inaan duntaye gaaladii dabaada goynaaye way inaan intay daalan tahay danka jaabinaaye way inaan dabwaada qaadanaa duqiya doonkeene dumar iyo rag waa inaan wada dareeraaye way inaan dubbaaha qaadanoon kaga digsinaaye way inaan dagaal joogto oo daran ku beegnaaye dabka qaata diintayna fari inaan dagaalaye la diriiraa ninkii gaaldilaa dogsay aakhara ee la diriira ninkii gaaldilaa dogsay aakhara ee allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ogaadeenaya ha xorowdo ogaadeenaya ha midowdo ogaadeenaya ha israacdo cadowga ogaadeenaya ha dhaco gumaystuhu ha dhaco isticmaalku ha dhaco ciidanka xoraynta ogaadeenaya ha guulaysta idinkuna waa bilaahi tawfiiq in shaa allahu tacaala waxaasoo dhawaaqa iyo waxaasoo qiraa iyo waxaasoo hadala waxaa naga keenaya shacabka ogaadeenaya oo maanta gumaysi xun ku jira oo la yaabna ay tahay dadka gumaysanaya markii loo fiirsado dad uu gumaysan kara aan ahayn waxaa weeye waxaan annaga oo gobannimo door oo xabad inaan gallo u diyaar garoonay haddana ku jira waxaanu hadalka dhexdiisa ugu ilmaynaynaa waxaana gumaysanaya tabaryaridiisa waxaana gumaysanay ee dadka annagu way dhulkoodii uga tageen ee arligoodii uga tageen ay sharaftoodii uga tageen tabaryaridiisa iyo ducfinnimadiisa taasaa naga ooyinaysa weeyaan ma aha inaan caloolnugay iyo wax kale la ilmaynayno sharafta aanu lahayn iyo haybadda aanu lahayn iyo qiimo iyo quwadda iyo awoodda ilaahayna siiyey ee aan adeegsan lahay taasaa nagu keenaysa walaaca badan marka walaalayaal waxaanu idinkula dardaarmaynaa oon idinka baryaynaa cid kasta oo na dhegaysata ama cajal naga dhegaysata maqala ama mid maqal iyo muuqaala naga dhegaysata waxaanu idinka baryaynaa hadday tahay shacabka reer ogaadeenaya ee u dhashay waddanka ogaadeenaya la yidhaahdo soomaalida ogaadeenaya ehelka waabaan la hadlayna meel kasta baa joogtay war sharafteenni inaan raadinno sumcaddeenni inaan raadinno innaga islaama ilaahay aan isku xidhno waddankeenna hodankaa xooggiisa iyo maalkiisa iyo dadkiisa intaan adeegsano war inaan sharafteenni adeejino oo soomaalida walaalaheenna aan la mid noqono oo dalkeenna aynu wax ku noqono in aan raadinno ayaan kala dardaarmayna soomaalida kale ee walaalahana ee dariska aanu nahay waxaanu iyagana u sheegaynaa
inay soomaalinimadii meel kaga dhaceen inay islaamnimadii meel kaga dhaceen inay derisnimadii meel kaga dhaceen dadka Soomaaliyeed waa dad wada dhashay oo laxmi u wada dhashay oo jiilku isugu wada yaalo oo sir rasmi u wada dhashay ma aha sheegasho ma aha Soomaalidu dadku dad wada dhashay oo walaalaha weeyaan oo aabi hooyo wada dhalay oo wadaaga dhalasho rasmi ah weeyaan laakiin xaqiiqatan Soomaalidu arrinta meel bay kaga dhacday wayna ku cadfureen dhalashadii walaalnimadiina way ku cadfureen Soomaalinimadina way ku cadfureen islaamnimadina way ku cadfureen maxaa dhacay waxaanu xaq u leeyahay inay noo wiiliyaan Soomaali walaalahood baanu nahay isticmaalka madow ee xabashada inay nooga heliyaan baanu xaq ugu leeyahay in ay nooga heliyaan cadow kasta oo aan Soomaali ahayn oo annaga dulan nagu sameynaya inay nooga heliyaan ayaanu xaq ugu leeyahay sawa Ethiopia oo Soomaali cadowgeeda koobaad inay nooga heliyaan baan xaq u leeyahay mase ayna sameynay iyaga u heliyeen waxay sameeyeen naftooda warayaashii u halgamaya xoreynta Soomaaliyeed annagu Soomaali baanu nahay Soomaalina oo halgamayna maniin ogaadeen iyo wadan magacii dad Soomaaliyeed anagu nahay dad Soomaaliyeed baanu halgamayna waxaana la haystaa oo aan deganahay wadanka ogaadeen ee leeyahay oo gobolada Soomaaliyeed kamid ah kaasaan u halgamayna dadkaas marka aan u halgamayna haddaba Soomaalida ee walaalahooda ee nin walba aabii u yaal ama walaalkii u yaalo xaq mayna ahayn Soomaalidu inay Ethiopia u heliso waxa weeyaan dhalasho ahaan Ethiopia uma helin hayaan diinna ma wadaagaan oo waa dad gaala dakara weyna wax taqaana hadda goorbu ka dhaxay Ethiopia Soomaaliya oo dhan bay soo leys niman aabii la dilamaan awowgayna dilamaan adeerkii dilma jiro haddana hadday Djibouti tahay hadday Somaliland tahay hadday Puntland tahay hadday Koonfur tahay Ethiopia waxay ka wada iibiyeen kuwii xoreynta Soomaalida ogaadeen iyo halgamay intay qabteen guriyahooda ku qabteen Ethiopia u dhiibeen ama inta la soo adeegsaday guriyahooda ku dhaxlaayeen taariikhda wax garahaya weeyaan waxa laga yaabaa wayna dhacaysaa in Soomaaliya ay Soomaalinimada ku soo noqoto ogaadeen inay xorowdo oo dawlad xor oo Soomaalida ogaadeen ay dhacdo ayaa laga yaabaa in Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah waqtigan dhaweyn waan fogeyna waan filaynaa marka qof kasta halganka wixii uu geystay islaamnimada wixii uu geystay dhalashada Soomaalinimada wixii uu geystay waa wax taariikhda ugu jira weeyaan laakiin anagu maanta inaan ka jawaabno haddaan Soomaalida ogaadeen yahay diyaar uma nihin cadowga qura ee ogaadeen ay leedahay waa xabashi weeyaan Ethiopia weeyaan cadow kale oo aan u leenahay ma jirto Soomaalidu shacabnimada way nagu leysay dawladnimada way noo adeegsatay ururnimay nagu laayeen dawladnimay nagu laayeen shacabnimay nagu laayeen shacabka ogaadeen oo muusan jawaabin umana jawaabi doono inta Ethiopia oo isku xoreynayo jabada wadaniga xoreynta ogaadeen xadgudubka shacabkooda lagu sameynayo maanta ee walaalahooda Soomaaliya ay ku sameynayaan inay u jawaabto ama ay ka argoosato diyaar uma laakiin waa wax lagu wada xaajoon doono Soomaaliyahan looga xaajoon doono markii Ilaahay na gaarsiiyo waqti ku haboon marka Soomaalida walaalaha ahna taas dhaliishaana saamsiinayna haddana ma naga qancin waxaanu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa walaalahood baanu nahay inay noo heeliyaan oo shisheeyaha madow ee xabashada cadowga ay noo heelino ayna naga raacin ee annaga ay noo heeliyaan oo heeliyahooda annaga inala garab istaagaan oo ay magaalooyinkooda mataqaana dana anaga inaan ku fushanay nasiya oo ay dekadahooda nagu caawiyaan oo ay hubkooda nagu caawiyaan oo ay maalkooda nagu caawiyaan waa annaga walaalahooda oo diin ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaan iyo jinsiyad ahaan ba annaga walaalahooda inay annaga noo heeliyaan ayaan ka codsanaynaa oo ayna diinta islaamka khalad ka gelin oo ayna ka gaaloobin dhalashadana ayna ku axtufin wadaniyadana ayna meel kaga dhicin walaalaha annaga Soomaaliyeedna intaasaan ku waaninaynaa meel kastoo ay joogaan waxaa kale aan dib baan ugu soo noqonayaa waxaa kale oo ayagana yani shacabka ogaadeen ee dahshigu uu ku dhacay ee habsoobay ee gumaysiga boqolaal sano jirsaday weligoodba in ay iska celin karaan niyadda aan ku hayn war waxa weeye in kasta oo shacabka ogaadeen iyo jabada xoreynta ogaadeen maanta aynan haynin saldhig iyo cid ma taqaanaa taageero military siinaysa waradana wadankaagii baad joogtaa walaalayaal inta aad haysato hashaada iyo laxdaada iyo sacaaga iyo dhulkaaga ballaaran iyo geediisa waad halgami kartaa ee wiilka geejirkii uu hasha caanaha kaaga lisay ee islaanta reerka joogtaa ee koobada masagada ku siinayso ee ma taqaana ee ariga lagu siinayo waad la halgami kartaa gargaarka ilaahayna waad sugi kartaa example waxa annagu aan ku halgalno ee naftaanada aan ku qancinaa idiin sheegaya marka dadkayga gadooday inta uu garab joog
hadba wuxuu gasiin heli intuu igu gargaarayo koobada gallayda inta aanu kala goosan gabdho wada baroonihi intaa ay garab roodi goobtaan istaagaba intay guusha ila raadi guntimuhu intay ugu iman geedka dabadiisa yacni waa sonkorta iyo bariidka iyo raashinka intay gabdho dhabarkooda ku soo qaadaan magaalooyinka keenaan ay noo keenhayaan wey guntimuhu intay iigu iman geedka dabadiisa geeljiraha ducaysini intuu ii godlini jaawo hadba gaawa caanaa intuu goor walba isini garoorkiiyo inta aanab cali goray dhanaankeeda gabban maayo way iska celin gaalka soo dhaleh gargaarkii allana way iska sugi iyo gacan ilaahay gacantiisa ballaadhanna waan sugi halgankaygana waan wadahayaa wax aan ku weeraro magaalooyinka aan mar qura ku weeraro intuu ilaahay isiinhayo iska fadhiisan mahayo gaalkay jeedgooyaan u dhigi miinaan u dhigi baabuurtaan gubi cambuuladaa iyo gabdhaha duurka iigu keenhaya koobooyinka masagada iyo koobka caanee geejirku isiinna waan ku sii halgamayaa waddankaygii baan joogaa faraqii la arkaba waan ka cabbahayaa gargaarkii allana way iska sugiya gacan ilaahay inaan guruf u qaada markay ila gudboonaato gaangaambin maayeen mar baan geesh ku weerari bamka gacanta geri noofka iyo gumca waxaan haysto anigoon u kala geerihayn yaan ku gubayaaye godka ay qoteen baan kufriga u galaynaaye gurmadoo ka kaca maanta waa gebagabayntiin war waxaa weeyaan dad islaamaynu nahay ilaahay baan ku tiirsannahay nasriga waxaa weeyaan wax yar oo ku samirto ayuu nasrigu ku yimaadaa haddii aad dhibaatada ku samirto ilaahay dartii aad ugu samirto oo aad ilaahay dartii wax walba u qabsato ood hawshaada aad ilaahay dartii u gudato ilaahay wuu ku siinhayaa nasriga kolla rabbigu gaal iyo nincaasay kaaga hiilin mahayo dhibaatadeenna haysata sida diinta islaamka ku cad innagaa gamcaheenna ku keensannay qoom ilaahay ma dulleeyo ilaa iyagu ay dulliga gamcahooda ku keensadaan mooyeen innagaa isdullayna walaalayaal gaalkii ilaahay iyo rasuulkiiba beeniyey yaan madaxa hoos dhigan war shareecada islaamku miyada ogol in gaalada madaxa la hoos dhigto in mataqaanaa gaala lala noolaado oo dirs lala noqda cadow kuwa in adigu oo qorigu haysta kiisii oo kala haysta in uu gaalku ku xukumo oo islaamkii uu gaalku xukumo see ma shareeca islaamba ogol war waxaa weeyaan sharafteenni baan iska qaadnay markaasuu ilaahay dulli inoogu bedelay ilaahay dulli aan weydiisanno si dhaba ilaahay cizi aan weydiisanno astaqfirullah alcadiim cizi aan ilaahay weydiisanno wuu ina siinay si dhab aan u weydiisanno aan gaaladan madow si dhab aan u nacno in ay la noolaanshaheedu xaaraan tahayna aan aamino xorriyaddeennina aynu raadsanno diintii islaamka ee innaga aan u nasab sheeganayna baa dulman inaan u dagaallaa waa waajib marka mooladeennii gurigeennii hoygeennii ayaa dulman nin kitaab qur'aana qaadan kara ma jiro nin cumaamad qaadan kara ma jiro astaantii culammada qof lagu arki karaayo ma jiro maxaa haddaba la sugayaa dad baa waxaa laga yaabaa in ay dhahaan dadkii baa la gubayaa etoobiya oon siyaasad wax kaga raadsan lahayn baa lagula dagaalaya war etoobiya bal kuwa xabadda la dhaca haye ee oowale laf u kaadiye shacabkuma dembi buu ka galay kitaabka qur-aankii maxabad buu ku riday ninka cumaamadda qaba ama garhka bixiyey maxabad buu ku riday gabadha cawradeeda asturtay ee jalaabiibkii qur-aanka lagu soo dejiyey xidhatay etoobiya maxabad bay ku riday looma jeedo marka in yacni looma jeedo noocaasa islaamka la cidhib tirahayaa walaalayaal calaamada islaamka astaanta islaamka dhaqanka islaamka ayaa la dabar jarahayaa ogaadeynaya iyo dadka islaamka yaalla in la baabi'iyo ayaa la rabaa dadka in la kiristameeyaa la rabaa diinta islaamka in laga saaraa la rabaa yaan dadka la khaldin maamulka ka jira ogaadeynaya ee baarlamaan la leeyahay waa midka daawanhaya gabdhihii islaamka ahaa oo gaaladu xoog ay ku haysato dadkii islaamka ahaa gabdhihii islaamka oo gaaladu ay xoog ku haysato soo dhawaynaynaa roodaya dumarka ogaadeynaya ee waddanka ka maqan ama halganka ka maqan bal hadda gabadhan yar ha dhegaysteen waa qof dumara ha ahaatee haddana bal da'yaraanteeda muuqaalka waxaa ka dhex arki doonaan cajalad waxay awooddaa inay buufisnay dhex gasho ay layn iyo dibada iyadu u kacdo waxay heli kartaa inay mataqaanaa nolol kale iska raadsato waa abwaanad laakiin way u cuntami weyde waxaan idinka codsanaya sheegaysa aad qaadataan ee aad rumaysataan in aad ku dhaqantaan oo aad fulisaan ood rumaysiga ficilkiisii aan idinka helo ayaan walaalayaal cid kastoo sugaantan iyo gubaabadani ay khusayso arrintaasaan ka codsanaynaa roodana waad ka maqlaysaan bal hadda iyadna ay rood